aynu ku bilownay warbixinteena mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer guuraaga ayaa ka warbixiyay olole dhir qaybin ah oo ay ka wadaan gobolada kala duwan ee dalka. haddaba aynu ku bilownay warbixinteena agaasimaha waaxda dhirbeerista ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga mudane Axmed Ibraahim Warsame ayaa si faahfaahsan uga warramay olole dhirbeerista oo ay ka wadaan gobolada kala duwan ee dalka iyaga oo kaga hortagaya xaaluf ku yimaada deegaankeena. waana kan agaasimaha oo arrimahaasi ka warbixinaya. aad iyo aad baa u salaamantihiin waad soo dhaweynaynaa waada warbixinta oo dhan idinka iyo intana dhegaysanaysaba haddaan su-aashaad weydiisay u gudbo waxay nagu soo foolnay 15 abriil oo ah maalinta dhirbeerista jamhuuriyadda Soomaaliland. wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga waxay aad isugu xil saartay sidii ay u qaybin lahayd dhir una gaadhsiin lahayd dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland. dhirtaas oo isugu jirta noocyada kala duwan ee dhirta sida harka, bilicda, kuwa midhaha laga cuno, kuwa dabaysha celiya, kuwa xooluhu daaqaan, kuwa magaalada lagu qurxiyo, intaas oo dhan bay isugu jiraan. dhirtaasi waxna waan raray oo waan gaadhsiinay goboladii waxna iminkan ku guda jiraa. for example haddaan tusaale kuu soo qaado waxaan u raray gobolka la yidhaahdo Sool 1500 geed baan u raray 1500 kalena iminkan u raraynaa. gobolka Saraar la yidhaahdo waxaan u raray 1500 geed. Sanaag waxaan u raray labada degmee la yidhaahdo Ceelfweyn iyo Galaadag 1500 geed. waxaa kale oo ku diyaarsan 4500 geed baa waxay ku diyaarsan yihiin magaalada Argaabo oo iyada aan ugu talagalnay inta markaano gaarsiino labada degmo inay degmooyinkeeda kale in iyada la gaarsiiyo iyo magaalada gudaheedaba. waxaan gaarsiinay gobolka Awdal oo aan u raray 1500 geed kun geedo kalena ay hore noogu yaaleen. waxaan gaarsiinay Balgubadle, waxaan gaarsiinay Salaxley, waxaan gaarsiinay Gabiray 1500 aan u raray. waxaan kale oo iminka noo diyaarsan inaan u raro degmooyinka kale ee gobolka Hargeysa uu ka kooban yahay sida Faraweyne oo aan shalay u raray. degmooyinkaas oo dhan waxaan ku jecelahay inaan gaarsiino oo dhirta ay u diyaarsan yihiin. magaalada Hargeysa waxaan ugu talagalay 10,000 oo geed. 10,000 ee geedba berrito ay bishu 8 tahay maalinta Arbacada ayaa laga rarayaa xarunta lagu tarmiyo dhirta ee magaalada Hargeysa. waxaana la geenayaa waaxyaha ay magaalada Hargeysa leedahay. qolada dawladda hoose warqad baan u qoray way noo soo jawaabeen, baraan bay noo soo gudbiyeen ay waaxyahooda ugu qaybinayaan dhirta. 10,000 oo geed bay soo qorshaysteen. qorshii berrito ayaan u raraynaa haddii Ilaahay ka dhigo. qorshaha dhirta aan qaybinta aan maray halkaasuu marayaa. waxna waanu qaybinay, waxna iminkaanu diyaar u nahay inaan raro waana ku guda jiraa haddii Ilaahay ka dhigo. aad iyo aad baad mahadsantahay mudane agaasime. aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya warbixinta dheer ee siisay. aad iyo aad baad mahadsantahay. dhankiisana isuduwaha gobolka Maroodijeex wasaaradda horumarinta deegaanka iyo horumarinta reer miyiga mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdi Kooshin oo aan kula kulmay beertaasi lagu kobcinayay dhirta kala duwan ayaa faahfaahin dheer iga siiyay isla markaasina sharaxaad dheer iga siiyay qaabka ay dhirtaasi u tarmiyaan una kobciyaan. waxaana hadaladiisa kamid ahaa 7 bishii Abriil ee 2020 waa Ilaahay mahadiyay in waxaan kolkaan isku wareysano halkan oo beertii kobcinta dhirta ee gobolkan Maroodijeex amba wasaaradda horumarinta deegaanka. waxaa yaal dhir fara badan oo kala duwan oo noocyo fara badan oo kala duwan oo loogu talagalay in lagu dheereeyo waxaan ku deegaamada kala duwan ee gobolkan Maroodijeex iyo waliba wixii dheeri ka noqon loo diro gobolada kale ee sayid ka noqon gobolada loo diraa. marka waxa weeyaa si fiican bay hawsha u socotaa. wadaragta waxa deegeed yaala shaqaale badan ka hawlgala kuwaas oo tababaran maxaan ku raayay beerista iyo qaabeynta dhirta maxaan ku noocyada kala duwan. marka insha Allah billaah kariim waxaan jeclahay in sanadka dambe inaan ka sii production badano ayaan filaynaa. thousands ma soo koobi karayno. waxaan ku raayay way ka qablaanaysan magaalada Hargeysa
amba nawaaxideeda amba gobolka Maroodijeexba dhul ku filan ayaa taala dadweynaha waxaan ku boorinayaa in ay markay dhirta soo gaadho 15 Abriil 2020 in qof waliba isku taxallujiyo sidii gurigiisa geeduga beerla taas very important way geedku waxyaabo taramo soo koobi karayno waa ma soo koobi karayno waa tii har haday noqoto soo koobi karayno waxa weeye taasan dhamaan dadweynaha reer Soomaaliland intaan ka bixin su'aashan kugu soo xiri doona waxa weeye bal hadda dhirtan kala duwan ee bari la qaybin doona hadii Ilaahay ka dhigo in caasimadda bilcideedii ama dhinacii quruxda sidee bay uga qayb qaadan kartaa maanta ma idin hargeysatay caasimadda dalka in iyadoo de kulayna u jiro dhinac kale dugsiyada kala duwan ee dalka ma laga beerayo iyaga laftigooda dhirbeeristo dhirtoodii ma qaadanayaan si ay iskuuladii looga beero ardayda u harsadaan waxa weeyaan waxa inta badan waxa naga qaadaya maxaan ku raayay baladiyaha ama dawladaha hoose qaadaya waxaan ugu talagaleen inay gaarsiiyaan maxaan ku raayay xaafadaha iyo iskuulada iyo maxaan ku raayay meelaha maxaan FCHada iyo dhulka muhiimka ah maxaan ku raayay civil service-ka maxaan ku raayay qof inuu gaarsiiyaan bay talagalanayaan waxa weey degmo kasto Hargeysa ah waa la keenaya degmo kasto gobolka Maroodijeex ka tirsan waa la dhigaya dhirtaas maxaan ku raayay loo qaybinayo maxaan ku raayay quantity kala duwan marka waxa weey waxaan ku rajo weynahay in maxaan ku raayay cid kasto oo ahmiyadu haysan beerto loo gacansanay waatay mudanaysaa magacaaga saddexan igu soo xiriir tartankaagu buuxad aniga waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdi Kooshin waxaan ahay isuduwaha wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee gobolka Maroodijeex waad aad mahadsantahay